Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa waxaan u baahannahay xoogga wakhti aan kaga fikiro. I need some time to think about it. I need some time to think about it. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa waan ku raaxaysanay xafladda habeen hore. We enjoyed the party last night. We enjoyed the party last night. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa iyagu waxay qorshaynayaan in ay safraan bisha soo socoto. They are planning to travel next month. They are planning to travel next month. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa iyadu casharka si cad ayay u sharaxday. She explained the lesson very clearly. She explained the lesson very clearly. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa waxaan sugnay baska nusaac. We waited the bus for half an hour. We waited the bus for half an hour. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa waxaan baranayaa sida loo wado gaari. I am learning how to drive a car. I am learning how to drive a car. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa iyadu waxa ay i weydiisay su'aal aad u adag. She asked me very difficult question. She asked me very difficult question. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa isagu waxa uu u shaqeeyaa si uu u taageero qoyskiisa. He works to support his family. He works to support his family. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa iyagu waxa ay nagu casuumeen xafladooda arooska. They invited us to their wedding ceremony. They invited us to their wedding ceremony. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa waxaan rabaa in aan booqdo walaalkay bari. I want to visit my brother tomorrow. I want to visit my brother tomorrow. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa waxaan joognay hotel u dhadhow xeebta. We stayed at a hotel near the beach. We stayed at hotel near the beach. Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa iyagu waxay raadinayaan guri cusub oo ay deg. They are looking a new house to buy. They are looking a new house to buy. Halka aad nagala socoto waa xarunta waxbarashada ee Irmaan mahadsanid.